magaciga waa Cabdiqaadir Cumar Xasan ku nool wadanka South Africa waxaan baafinayaa hooyaday Saacadiyo Cali Axmed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran janaalkeena soo dhawaada. waa gabdhihiin yaryaraha iyo markale iyo video cusub soo dhawaada asxaabta please tan ugu cusubta subscribe adina wax ka dhibay anaka waxaan wada walaalaha like share comment-iga waa xageena. okay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno video xasaasi ah haddii aad ku dhawaad dareemi karto waa video qeyrada oo ka hadlaya ku saabsan qof dhan noloshiisa marka ku leeyahay maxaa waaye waa qof calashaan noloshiisa markuu ka hadlaayo waa wax serious oo laga gaftami karin. okay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno wiil Soomaaliyeed oo cod soo dhiibtay videos ka soo duubay oo dhaw waxaan baafinayaa hooyaday macaan oo iigu dambeysay 2008 wax sahlan maahan waa hooyo waa kaleeyahay wiilkeedii baafinayo. okay wuxuu naga codsanayaa videogan inaan u share gareyno baraha bulshada dadka caanka ka ah inay video soo sameeyaan oo qof walba oo video aragta waxa waajib ku ah inuu share gareeyo. kale anaga waajibkeena wuxuu ahaa inaan videos ka soo duubno oo inta ummadana taqaana ama inta nagu xiran aan la wadaagno videogan. okay waxa kusoo dhaweynaa walaashay Maryam. waa idin salaamo dhammaan asxaabta meel walba joogtiin soo dhawaada. maanta waxaa jirto arrin muhiim ah haddii marba la dhaho walaalayaal i caawiya ma jirto wax fadhiya ama wax kaleetooda oo la raadiyo. wiilkan wuxuu yiri hal ay caawiyo qof walba oo i caawi karo waa muhiim inaad u istaagto qof walaalka ah oo caawiska raba ama inta social media soo fariista dhaha hal ay caawiyo. waxaan idinka codsanayaa idinkan inaad sidoo kale tacaawisiin oo videoga si share gareysiin qof walba u share gareysiin si loo helo hooyadaas. qof haddii hooyadii ka maqan tahay oo maxaa la dhihi jiray waalidkiisa uu ka maqan yahay waa arrin aan isdhihi lahayn oo kaleeto isdhahaya. aad baad u mahadsantihiin waan idinka codsanayaa inaad share gareysiin oo qof walba aad u share gareysiin. waxa maanta halkaan aan usoo fariisanana wax kale ma ahan waxay tahay inaan walaalkeen hooyadiis aan ku caawino amba aan la raadino oon codkayna ku caawino haddana wax kale aan u awoodi karin. soo dhow aad iyo aad wiilka videogiisa noo shidaa haddaan isla aragno sida uu asagoo hadla magaciisa. Assalaamu calaykum walaal magaciga waa Cabdiqaadir Cumar Xasan ku nool wadanka South Africa waxaan baafinayaa hooyaday Saacadiyo Cali Axmed taas oo magaciisa waxaa la dhahaa Cabdulqaadir Cumar Xasan hooyadiisna waxaa la dhahaa Saacadiyo Cali Axmed. markii ugu wardaysan hore ugu sheegay 2008 ay wardaysay iyadoo joogto wadanka Liibiya ugu wardaysay Liibiya sanadka markuu ahaa 2008 ilaa haddana waa iga maqan tahay. waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa dadku yani waxgalka inta yani caanka ah inay ii baafiyaan hooyaday macaan ayaan ka codsanayaa. ilaa haddana waxaan ahay qof hooyadiis ka maqan tahay inoo la geeri koobin. Soomaalidu waxay tirahdaa markii xoolo kaa maqan ama wax kaa maqan yahay markii hooyo kaa maqanta ama wax kaa maqan baadi kaa maqanta waa inaan rag iyo ruux mid heshaa. wuxuu kala jeeda calashaan qofkaas haddii geerisa lagu sheegay xitaa waa ka samraysaa haddii noloshiisa lagu sheegana waa basaarta alxamdulilah. marka walaalkeen waxaan leenahay ilaahay ku soo horto hooyada qof hooyadiis ka maqanta aad iyo aad ay xanuun badan tahay ama cunugaada kaa maqan ama walaalka kaa maqan qof ehelkaaga xitaa hadduu kaa maqan aad iyo aad ay xanuun badan tahay. waan kula dareemaynaa murugada aad dareemayso waxaa ku leenahay ilaahay ku sahlo hooyada. qof allaala qofkii Soomaaliyana waxaan ka codsanayaa inuu videoga u share gareeyo qof walba oo baraha bulshada caanka ah waxaan ka codsanaa sidaan oo kale si lamid ah inuu uga soo qayb qaato oo wiilkan hooyadiis ula soo baafiyo ama uu intii karaankiisa uu la raadiyo. midda kale wuxuu afka ku dhiftay wiilka inuu ka codsanayo Soomaalida intii codkeeda ku raadi karto iyo intiiba telefoon ku raadi karto iyo inta si kale u raadi karto inuu codsi gooni oo u soo jeedsanayo dadka Soomaaliyeed oo uga baahan yahay caawinaad inay u fidiyaan. caawinaaduna ma ahan inaad qof kaliya aad wax siiso ama aad qof ku caawiso lacag yar wax walba la isku caawin karaa. qofkii maanta hooyada ah oo kaa maqan waa fahmi kartaa 2008 ilaa hadda waxaa u dhaxaysa 12 sano sanadkii 13 la galo waaya waqti aad u adag waaye waa waqti aad u dheer. inta sanad hooyada moogato adoon godna ku ogeynin meelna ku ogeyno meedkeedana aadan duugan mariilkeedana aadan baanin meelna aadan ku ogeynin in hooyada intaas ay ka maqnaato waa wax xanuun badan. waa waxa maanta meeshaan soo fadhiisiyo wiilkaas aan la dareemayno run ahaantii. qof walba hooyo dhashay ama qof walba hooyadeed jecel ama qof walba hooyo ka naxayso waa inay videogan u share gareyso oo
la wadaagta dadka asxaabteeda si loo helo hooyadaas wiilka uu helo oo hooyadiis ay mar dambe dib u midoobaan. waa wiil dhalin yar, waa wiil mustaqbal u baahan, waa wiil waalidkiisa u baahan. waa hubaalna hooyadu marka ay ka maqan tahay waxyaabaha kaleeto kulama mid ahan. hooyadu waa lafdhabarka guriga, waa lafdhabarka nolosha. haddii hooyadaa kaa maqantood meelna ku ogeyn waa arrin aad u xanuun badan. waa idin salaamaya balse asxaabta aad iyo aad ilaahay waxaan ugu baryaynaa hooyo Sacdiye Cali Axmed inuu usoo sahlo walaalkeen insha Allah, sida aan jecelnahay ama sida aan u rajeynayno inuu hooyadiis iyo asaga mar labaad ay midoobaan. dhammaan asxaabtana waxaan leenahay videogan hadaa aragtid share garay si walaalkeen aan u caawino. okay asxaabteen videogan intaas kusoo gabagabeynayna waxaan leenahay daawashada videoga waa ku mahadsantihiin. inta video ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.